waa koox isweydaarsanaysa fikrado la xiriira sida loo horumarin karo ganacsiga iyo tiknoolajiyadda. Naciimo Faarax waxa ay doonaysaa in ay Muqdisho ka aasaasto warshadii ugu horeysay ee bacaysa caanaha burburkii kadib. waa soo ogaanay suuqa dad badan baa u baahan shacabka qaarkood waxa weydiinay sababtay u gataan caanaha dibadda ee tahay caanaha localka u gadan waxa kamid ah nadaafadda caanaha wasaqda ay quality-geedu u dhamo fiicna 110 jeer la boil gareenay kuleeyeen la kuleynaya markaas adeerkana ku dhan ka waran adeeg caanaha wadada gudaha lagu subiyo oo la package gareeyo oo isagoo nadiif ah caafimaad nin keeno oo meel kasta ka heli kartiin ka waran dad shacabku way jeclaadeen ka heleen adeerkaas. Dhalinyaradan ayaa haatan helay meel ay isku weydaarsadaan fikradahooda naadirka ah iyo hal abuurkooda. wax fiican waa dad badan fikrado badan ku jiraan madaxooda haysan meel ay ku soo bandhigaan meeshan waxa u fududeysay in ay fikirkooda ay ku soo bandhigaan qof walba. Ka hor inta aysan si rasmi ah xaruntan u furmin waxaa markiiba xubno ka noqday dhalinyaro fara badan. howlaha xaruntan kuma eka in ay ururiyaan isla markaana ay hormariyaan fikradaha oo kaliya, balse waxa ay doonayaan in ay noqdaan meel ay ku soo hirtaan dadka maalgashadayaasha ah ee doonaya in ay helaan fikrado ay ku hormariyaan ganacsigooda. hal abuurka xaruntan ayaa ka yimid dhalinyaro doonaya in ay dhalinyarada kale siiyaan fursad ay ku hormariyaan noloshooda, balse caqabadaha ugu waaweyn ee wajahi kara ayaa la aaminsan yahay in ay ka mid yihiin diiwaangelinta fikradaha iyo ilaalinta hal abuurka. barnaamijkan wuxuu ka bedeli doonaa barnaamijkii hore oo kale, wuxuu kusoo kordhin doonaa dhalinyarada rabto inay shaqo hesho in ay shaqadii abuuran karaan iyaga markay gacanta soo dhameeyaan inay halkan ugu yimaadaan ay hal abuurkoodii sameeyaan, kadib markay afkaartooda la yimaadaan ay iyaga shaqo abuurtaan dadkana shaqo abuuraan. xaruntan ayaa ah tii ugu horeysay oo nooceeda ah oo laga furo magaalada Muqdisho, waxa ayna indhaha u kala furaysaa dhalinyarada hal abuurka leh ee doonaya in ay samaystaan shaqooyin u gaar ah halka ay iyagu shaqaale ka ahaan lahaayeen. Cali Nuur Salaad, BBC, Muqdisho.